5 qodob oo ay muhiim tahay inaad ka ilaaliso naftaada, gaar ahaan inta aad dhalinyarta tahay. Qodobka koowaad waa waqti lumiska. Waxa ugu qaalisan noloshaada waa 2 shay, waana caafimaadka iyo waqtiga. Nabigeennuna wuu inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam, waxaana uu yidhi xadiisu macnihiisu ahaa, dadku waxa ay ku kadsoomaan ama ay isku iloobaan 2 nimco. 2 nimcana waxay kala yihiin caafimaadka iyo fursadda qofku uu haysto. Haddaba 2 shay ka faa'iidayso. Waqtigu waa shayga haddaad si sax ah u maalgashato meel ku gaarsiin kara, faa'iidadiisana aad arki doonto mustaqbalkaaga. Haddaba waqtigu waa shayga ugu muhiimsan ee ay tahay inaad ilaashato kana faa'iidaysato. Qodobka labaad waxa uu yahay dib u dhigista. Waddada koowaad ee guuldarradu waa inaad dib u dhigto hawlaha ku yaalla. Imise qorshe oo maanta noloshaada wax weyn ku soo biirin lahaa ayaa dib u dhigtay. Imise xirfadoodoo dhaqaale ka samayn lahayd maanta ayaa ku dhaafay sidaad dib ugu dhigaysay. Dib u dhigistu waa dilaaga ugu weyn ee qofka noloshiisa baabi'iya, horumar badan oo uu gaadhi lahaana ka hor istaaga. Qodobka saddexaad waxa uu yahay iska ilaali dhammaystir la'aanta. Dhammaystir la'aantu waa inaad dhammaystiri weydo hawlaha kuu yaalla. Hawlaha ku yaalla waxaad bilaabaysaa xilli hore, laakiin meel dhexe ayaad ku joojinaysaa. Hadday tahay shaqo lagaa sugayay inaad qabato, hadday tahay xirfad aad baranaysay, hadday tahay waxyaabo aad akhriyaysay, intaba marka hore waad bilaabaysaa, balse meel dhexe ayaad ku joojinaysaa. Haddaba taasina waa caqabad ay tahay inaad iska ilaaliso. Haddaba ku dadaal inaad dhammaystirto wixii aad bilowday si aad faa'iidada u gaadho. Marka hore aad wax bilaabaysana sii baadh shayga aad bilaabayso, caqabadihiisa iyo xalkooda. Qodobka afraad waxa uu yahay xidhiidh haasaawe oo aanad ka dhabayn karayn. Xidhiidh haasaawe oo aanad ka dhabayn karayn waxaan uga jeedaa, ma haysatid dhaqaalihii aad maanta ku guursan lahayd ee aad reer ku dhisi lahayd. Ma awooddaa haddii inanta aad xidhiidhka la leedahay caawa ku tidhaahdo, waxaan rabaa inaad isoo doonto 2 toddobaad kadib, bil kadib, 2 bilood kadib, 3 bilood kadib, ama ugu badnaan 6 bilood kadib. Haddii ay jawaabtaadu maya tahay, waxaad la mid tahay qof indhala oo xilli habeena meel cidla socda. Sidoo kale waxaa la mid ah inanta la socota inaan aan awood u lahayn inuu soo doono bil ilaa 6 bilood inta u dhaxaysa, amaba aan shaqo haynin ee arday ah. Haddii la bilaabo way adag tahay in la joojiyo inta badan, laakiin waxaa fiican inaanu qofku marka hore bilaabin. Haddii uu bilaabay oo uu rabo inuu joojiyana, inuu si ayar u joojiyo oo uu soo yareeyo hadalkii badnaa, kulankii badnaa iyo waxyaabaha kale ee la midka ah. Dhalinyaro badan waxay samaystaan xidhiidh, laakiin badanaa wuxuu ku dhammaadaa fashil iyo waxyaabo aan fiicnayn. Mustaqbalka dambena wuxuu keenaa inaad weydo cid aad aaminto ama aad ku qanacdo, oo dooqa ayaa kaa baahaya, guurkiina wuu kaa dibdhacayaa. Qodobka 5aad waxa uu yahay ee ugu muhiimsan cibaado xumo. Waana qodobka ugu halista badan noloshaada, saamaynta ugu badanna leh, waayo ciddaad wax ka doonaysaa waa Ilaahay. Adiga iyo Ilaahayna xidhiidhkiinnu ma fiicna. Taasina waxay keenaysaa inay waxyaabo badani kugu adkaadaan, waxyaabo kale oo badanna ay ku dhaafiso murugada qalbigaaga ka shidan. Haddaba cibaadadu waa lafdhabarta noloshaada marka aad tahay qof muslima. Dadka gaalada ha eegin muuqaalkooda sare, waayo qalbigoodu murugo iyo diiqad ayuu la gubanayaa. Nolosha ay ku jiraanna kuma faraxsana, laakiin adigu waad faraxsan tahay, waanad qoslaysaa qosol dhab ah oo niyaddaada ka soo go'ay, adiga oo aan haysan wixii aad cuni lahayd, waayo niyaddaada ayaa deggan oo qalbigaaga ayaa faraxsan. Cidda ku arsaaqdana waad garanaysaa, laakiin qofka aan Ilaahay rumaysnayn qosolkiisu ma dhaafsana afkiisa iyo wejigiisa. Haddaba waxaynu haysanaa nimco aad u weyn oo Ilaahay waxa uu ina siiyey diin wanaagsan, taasoo ay ku jirto nolosheenna adduunyo wanaaggeeda iyo nolosheenna aakhiro wanaaggeedu. Fadlan aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee kommentiga, kana mid noqo asxaabta ku xidhan Maamuusa Media ee ka faa'iidaysta xogaha aadka u muhiimka ah ee aan soo geliyo barteenna Maamuusa Media.